مسؤولية maamulka gobolka iyo degmada Ceergaabo ayaa ka qayb galay munaasabad lagu hawlgelinayo mashiinka oxygen-ta oo dhawaan wasaaradda caafimaadka Soomaaliland ugu deeqday isbitaalka guud ee magaalada Ceergaabo waxaana mashiinka oxygen-ta soo bulshada gobolka ay baahi weyn u qabeen ay waxa xafladaasi ka soo qayb galay madaxda caafimaadka ee gobolka xildhibaano culimaadudiin ay waxa ugu horeyntii halkaasi ka hadlay agaasimaha isbitaalka guud ee magaalada Ceergaabo Dr. Faarax Cabdilaahi Yuusuf iyo sidoo wasaaradda caafimaadka gobolka Sanaag Dr. Xasan Axmed Saalax maanta xafladeenan aynu joognaa وحوي حفلتي دهفركا إنه كهول جنيني مشين كأكسجين تا مجالات عرقابو إن سيد الله سعطان مشين كعرقابو حلا كان مدبل كده يوم كولي إن هو مشين عصبه وسارد ويسوري وسارد هرمرن تعافماتكو إن مددي ولي وحلوج شري قرشيه سي يسدي له هول جلين لها مشين كاس رنتي براسس بسامرتي إن براسس كاس وسامرة وحكم ده سيدي isaga la isugu loo rakibi lahaa sidii dabka halku ka heli lahaa loo rakibi lahaa iyo sidii uu heli lahaa dhisme ku haboon si uu u shaqeeyo runtii alxamdulillah inta badan ku guuleysanay mashiinkiina maanta uu noo shaqeynayaa baahi badan baa jirtay runtii gobolka oo xaalado badan uu soo maray xaalado aad uga khatar badan maanta heerka la jooga ayuu soo maray baahiyaha jira ayaana dawladdu ay garatay inay maanta baahida weyn ee taagan ee oxygen yaraanta inay mashiinkan u keento markii dadku aadka u soo dhacayna xanuunka COVID-19 ku soo ritay dadka soo dhacaya way farabateen dadka naqasku qabanaya way farabateen resource-kii maalinta aanu haysanay wuu koobnaa taas waxay kaliftay in qaylo badan aanu ka wasaarad ahaan gobolka aanu samayno inaanu dawladda dhexe la hadalo inaanu wixii meel kasta wax laga heli karo aanu raadino oxygen-ta waxay nagu kalifaysay inaanu gobolada kale ka soo qaadano ay dawladdu naga caawinto sidii loo keeni lahaa gobolka Sanaag muddadii mashiinku aanu oolinayo muddadii la doonayay in la hawlgeliyo ugu dambeyntii mashiinkii uu noo yimi maanta waanu dhammaystiray maantana uu shaqeeyo ugu horeeyay wasiirka wasaaradda caafimaadka oo runtii dadaal fara badan nala sameeyay mashiinka helitaankiisa waxaan kaloo mahadnaqayaa gudoomiyaha gobolka oo tallaabo walbaba nala garab taagnaa oo nala shaqeynayay mashiinka dalabkiisa maxay tahay oxygen-tii inta mashiinka aanu ayn oxygen-tii aynu ka doonayno gobolada kale la dagaalankii inaanu helno mataqaana oxygen gobolku ay hesho waxaan kaloo aad u mahadnaqayaa gobolada saaxil iyo togdheer oo runtii aad iyo aad nooga kaalmeeyay intii aanu mashiin kale aan oxygen aanu helaynay waxaan ugu kaliftay markii ay culayska ku cuslaaday togdheer iyo saaxil oo soo saaritaankii iyada hawshoodii cuslaysay inaanu dib wasiirka ula hadlo meelahaas hawsha ku cusub yahay Hargeysa uu nooga soo diray oo tii ugu dambeysay Hargeysa nooga timaadada ka dhigo mashiinkii waxa weeye way noo shaqeynaya waa hawlgalay hadda xalay habeenkii afraad buu shaqeynayay laba jeer baan hadda degmooyinka aan u diray sabalay u diray waxaan doonaynaa dadkeenii waxa weeyaan xanuuno badan baa waxay keenaan naqaska in loo baahdo oxygen keena laakiin xanuunkani waxa weeyaan waa ka dhib badan yahay inta badan dadka uu ku dhaco ama uu rito waxa baahan oxygen baahan oxygen ta qofka nafta ilaahay baa badbaadiya oo qofka naftii xilligu talagalay buu dhimanaya laakiin waxa weeyaan inagu dadaal baa lana saaray inaan dadkeena oxygen waayin waynu ognahay gobolku aad iyo aad u ballaaran yahay waxaan doonaynaa baarkan waxa iska leh Ceergaabo kaliya ma laha gobolka oo dhan ayuu u yahay loogu shaqeeyo gurigiisa loogu shaqeeyo mana dhici karayso qof kale gurigiisa loogu shaqeeyo waxaan doonaynaa meelaha ka jiraan isbitaalada in la geeyo oxygen-ta sida Ceelaf Weyn Gar Adag Badhan Dhahar Xingalool Ceergaabo meelaha isbitaalada leh in oxygen-ka la geeyo waxayuna mashiinkaasi oxygen-taasi isku mid ah u soo dhaweeyay xubno isugu jira culimaadudiin xildhibaano taliyaha qaybta bilayska iyo maayirka degmada Ceergaabo ayaa dhammaantood ku baaqay in laga wada qayb qaato xarunta dhismaha mashiinka doorkani wax ul yar ma aha ilaaha baa inoo keenay oo inoogu soo saqray dad inoo keeno wasaaradda keentay baa la yiri ma sha Allah waa barako waxba laakiin ka dhiman baa la leeyahay gurigan waxaa la tilmaamayaa in uu dhis u baahan yahay in la dhisto cidda uu sugaya waa reer Ceergaabo ma aha dad meel uga imanaya cidda uu sugaya war waa reer Ceergaabo وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان
ilaahay wuxuu tilmaamaya waxay isu kaalmaysataan wanaagga iyo cabsida isu kaalmaysta waa dhakhtarku ma aha shay qof bini aadan leeyahay wax ummadda ka dhaxaya dhakhtarku ma aha shay lacag isagu soo saara ergaba waxaan leeyahay yaynaan sugin ummad meel inooga imanaysa aan dhisno guriga kan motorka laftiisa waxay motor isaga motor u sii baahan bari motorka laftiisa ba motor kale u sii baahan ama leedhkii han noqdo qolada iyaga garanaya motorku waxa uu yahay imay sheegin wax leeyahay motor kale u baahan yahay waxaan oo dhami waynu ku filannay haddaynu jeebkeena mid kale waa bishii Ramadaan oo sakawaadka aad bixisaan ee bishii Ramadaan la sugtaan ayaa ku filan Allah ya baarik heer ahaan wasaaradda caafimaadka waan la shaqeynaa waxaana kala shaqeynaa health and nutritionka oo department baanu leenahay la health and nutrition wax badan waanu isla shaqeynaa waan isla qabanay oo ay ka mid tahay keenitaanka mashiinka gobolka Sanaag ama degmada Ceergaabo inaan mashiinka keeno sidoo kale waxaa jira shaqaalihii ama staffkii mashiinka ka shaqeynayay oo iyagana muddo lagu tababarayay oo hay'adda care ka caawisay 3 shaqaale ah sidoo kale waxaa jira wacyigelin la sameeyo oo daily ah oo maalin walba la sameeyo oo hay'adda care iyadana wasaaradda caafimaadka la wado qabiyada waxa muhiim ah inaynu reer Ceergaabo hadaynu nahay isku tashano dadkeeni waad ogeydeen halkan qaarna ku nafbaxayeen oxygen la'aan dadweynaana waxaanu ka codsanaynaa inay aynu ka wada qayb qaadano dhismihiisa gurigan mashiinku yaallo oo la xafido waxaan u hambaleynayaa cid kasta oo nooga ka qayb qaadatay ama isku taxallujistay inuu mashiinkan oxygen-ta sameynaya soo gaaro gobolka Sanaag muddadii uu yaalayna bulshadu dhan waa sugaysay gobolka Sanaag maadaama cilasaarkiina lagu sameeyo oo maanta shaqaynayo waxaan leenahay cid kasta oo ka qayb qaadatay maskax iyo dhaqaaleba ilaahay khayraad siiyo wax khayr qaban halka idinku bedelo waxaan leenahay bulshada gobolka Sanaag ku nool aynu wixii doorka aynu ku leenahay in mashiinkaasi bulshadeena u shaqeeyo oo qaybta caafimaadka naqaska ka qayb qaato aan ka qayb qaadano warbixintii waxayna siiyay isu duwaa sheekuna uu ku bilaabay wixii ka dhiman meesha innaga inoo taalla haddaynu reer Ceergaabo anagu dawlad hoosaan diyaar baanu nahay laakiin waa inaynu ka midaysannahay inaynu meeshan qurxino inaynu dhisno in halkan wixii ka dhiman aynu baahi doono in wixii maxaan ku daayay taxadir oo dhan aynu samayno inaanu ka fadhiisan insha Allah taala waxa jirtay qolo wada mishiin cusub inay keento lacagna haysa iyaga labsada waxaan leeyahay ha ku sasina oo haruunina waxba la geeyay meeshii shaqadii ka bixinina sidii hawshii u wata dadna tala isugu nimaadno iyagana intaas lagu gudbinaya waxaana ugu dambeyntii halkaasi ka hadlay gudoomiyaha gobolka Sanaag injineer Axmed Cismaan Xasan oo mahad celiyay cid kasta oo gacan ka geysatay mashiinkaasi waxaanu sidoo kale baaq u soo jeediyay ganacsatada gobolka waxaan mahad celinaynaa marka koowaad Ilaahay inoo suura galiyay inay noo timaado alaabtaasi waxaan mar labaad u mahad celinaynaa maxaan ku dhahay wasaaradda caafimaadka oo fulinaysay amarkii madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Muuse Biixi Cabdi ee ahayd in caafimaadka maxaan ku dhahay aad looga howlgalo oo maxaan ku dhahay ummadda badqabkeega la raadiyo iyagoo taa fulinaya ay noo keeneen mashiinkii aynu ka dalbanay horey kii COVID-ka lagu baadhayay baa laynoo keenay iminkana waxa laynoo keenay waxa weeye waa kii oxygen-ta dhalinayay haamuhuna way inoo yaalaan kontameeyo sidaan qiyaasta filayo walow aan lambarkaasi nagu yar yahay waan jecel lahay inaan nambar ka badan helo marka gobol ahaan ay noo qiyaasano nambarku laakiin aad iyo aad baan ugu mahad celinaynaa wax kastoo inaga soo wajahana waynu wada geli doonaa waxaan mar labaad ku celinayaa ganacsatada berrita waa inoo ballan insha allahu iyo xafiiska gobolka kolleyto ilaa tobanka subaxnimo Aliyadan Daahir TV-ga caalamiga Home Cable TV magaalada Ceergaabo